بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرunta xaruur waa maalin sabtiya bishu waa 3 muxaram ilaahay khayrka ilaahayna siiyo aamiin aamiin maanta waa maalintii 243aad ee isku xigta ee aan ordo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin casharkan waxaan kaga hadlayaa waxa qofka bini aadanka ah uu qabsan karo sidaad ogtihiinba dadkiina fakira sidaad ogtihiinba bulshadaynu dhulkay taalla haddana qof kasta ma doonayo inuu wax ka qabto sideebo qof kasta oo inaga mid ah oo xilkas leh oo mas-uul ah uu wax uga qaban karaa bulshada ta ugu horeysa waxa weeye qofkaasi isaga ayaa wax noqon kara isagaa noqonaya qof cilmi raadiyey cilmi helay cilmi ku dhaqmo haddii aynu doonayno in bulshada wax ka noqono haddii aynu doonayno bulshada inaynu bedelno waa inaynu inagu marka hore raadino waxa inaga maqan si aynu ugu dhaqaaqno aynu u helno waxa aanu doonayno su-aal ayaan weydiinaya qofka muuqaalkan daawanaya su-aashaas waxaa laga yaabaa hadduu caqli leeyahay qofkaasi inay ka fikir siiso su-aashaasi waxa ay tahay maxay ku kala duwan yihiin labadan qof qofka wax akhriya ee qofka wax akhriyi kara iskuul tegay ee lagu soo tabcay wax akhriyi kara ee aan bugaag akhriyin iyo qofka aan waxba akhriyi karin ee aan aqoon sida wax loo akhriyo maxay ku kala duwan yihiin haddii aad daacad tahay haddaad naftaada runta u sheegto waxaad ogaanaysaa inay isla mid yihiin waa qofka hooyadii iyo aabihii ama ehelkiisa kale ay ku soo tabceen ay iskuul u direen si uu u barto sida wax loo akhriyo yani iskuulka marka la dhameeyo waxaa la yidhahdaa bilowga weedha waa latin baan filaya laakiin ingiriiska noqotay marka jaamacadda laga qalin jebinayo maalintaas waxaa la yidhahdaa maalinta qofka warna loo dhiibiyo shahaadada koofiyadda xidhan yahay iyo khamiiska koofiyadda iyo khamiiskaasi waxa ay ka yimaadeen islaamka ciraaq bay ka yimaadeen ma oga dadku badankiisi ma oga khamiiska dheer miyaa oga ka waa imaamyadu xidhaan waa bilowga waa waxbarashadaada maantay bilaabatay maaha maanta inaad qalin jebisay sida soomaalida maxay ku kala duwan yihiin aan kugu celiyo su-aasha maxay ku kala duwan yihiin qofka yaqaano sida loo akhriyo wax ee aan bugaag akhriyin iyo qofka aan aqoon sida wax loo akhriyo maxay ku kala duwan yihiin jawaabtu waxa weeye waxba labaduba waxba ma akhriyaan waan aqaanaa laakiin bugaag ma akhriyo ma dhaantid qofka aan aqoon wax akhriska isku mid baati waxaa kaliya isku dhaantaan adiga waa lagugu soo tabcay lacag baa lagaa bixiyey waqti baa lagu geliyey hooyadaa laxooxda kuu dubaysay dharka kuu meedhaysay ku kicinaysay subxii si aad wax u soo barato wixii baad khasaaraysa qofka aan waxba akhriyi karin een aqoon ba'da iyo ta'da aan kala saari karin iyo aada ama jada iyo adigu isku mid baati casharkan inta ku jirta watan kuwa soomaalida baan la hadlayaa haddii aad ahayn qof wax akhriska jecel boggaygan tiktokaygan kuuma qalmo haddii aanad jeclayn socodka inaad ku jirtaba maaba kuwaas way tegeen marka
waxaa soo haray dadka wax qabsanaya doonaya horumaraan waa inaad wax akhrido waa inaad maalin kasta wax akhrido 10 daqiiqo ha noqoto 20 daqiiqo ha noqoto nus saacna ha noqoto saacadna ha noqoto mar kastoo aad ka badiso akhriskaaga 10 ama nus saac qofka uu ka akhris badan yahay halka qof 10 daqiiqo ka geliyo qof ka geliyo 2 saacadood qofkaasi wuu ka horeeya xisaabta waa lagu dhigin hal loo geeyey hal waa imisa waa 2 mar kastoo aad wax badiso oo aad hab raacdo mar kastoo qof ka horeyso mar kastoo aad xisaabta isticmaasho mar kastoo aad ka horeyso marka waxaad u baahan tahay inaad wax akhrido maalin kasta aad doonayso inaad horumarto wey haddii aad doonayso inaad nolol caadiya oo adag oo dhibaataraysan aad ku noolaato kubadda daawo adiga qaar kula mida la sheekayso tv-ga daawo foonkaaga 4 saacadood ku isticmaal 8 saacadood ha lagugu soo xamaalo soo noqo noloshaada waa intaas nolol fiican weligaa kuma noolaanaysi carruurtaada way ka go-antay adiga way kaa go-antay xaaskaaga way ka go-antay laakiin haddaad doonaysa inaad wax qabsato waa inaad akhriska bilowdo waayo waa taqaanaa waa lagugu soo tabcay waxaa lagugu soo tabcayay inaan maaha aad tiraahdo waxbaan aqaana iskuul baan tegey waa inaad sii wado maanta waqtiganaynu ku jirno cilmigii aan bartay sanadkii hore iska daa cilmigii aan bartay bishii hore haddii aanan maanta waxba akhriyin waa layga tegey waxaa iga tegay qof kaloo dadaalaya marka waxaad u baahan tahay in aad ogaato xaqiiqada runta halkay taagantay bulshada soomaaliyeed waxbaad ka noqon kartaa maanta sababta mataqaana dhulkay taala qof kaliya oo doonaya inuu karti wax akhriyo ma jirto dad wax akhrido fursad fiican baad helaysaa xil fiican baad helaysaa meel fiican baad bulshada ka gaaraysaa iyagana waad bedelaysaa adigana noloshaada way isbedelaysaa haddii aad iminka noloshaada dadaasho ood naftaada ku dadaasho ood waxbarasho geliso noloshaada fududaanaysa laakiin haddaad arsenal daawato koobka adduunka daawato tv-ga daawato foonkaaga